Feel a lot of trauma from being because of the war, because of what they went through. dumarka oo wax la baraa waa jiilka dambe oo wax bartay marka la isbarbar dhigaya aqoon iyo aqoon la'aan aqoontu aad ayay uga qiimo badan tahay aqoon la'aanta. Very hectic, busy newsroom where I take haddii la rabo in gacan ama jiil cusub la soo saaro kuwa oo ka dhisan dhanka aqoonta caafimaadka iyo garaadka waa in marka hore la dhisaa dumarka haweenka ama gabdhaha waxaana taa uga gol leeyahay in haddii dumarka wax la baro oo la siiyo aqoon ku filan waxay iyana ogaanayaan qiimaha waxbarashadu leedahay sidaas daraadeed waxayna soo baxayaan ama caruurta ay dhaleen kuwa wax ku leh bulshada dhexdeeda kuna soo kordhiya fikir maskax aragti iyo aqli suuban hooyo weliba oo wax baratay hadday mid ama labo aqoon leh soo saarto kuwaas oo ka dhisan dhan walba waxay bulshada ku soo kordhinaysaa aqoon-yahano biri ka maalin la tartama aqoon-yahanada kale tusaale ahaan haddaan eegno dhammaan dadka dunida ku nooli ma noqon karaan wada aqoon-yahano iyo kuwo cilmi ka buuxa balse mid weliba tarbiyada hooyadiis ama ay soo siisay hooyadiis ma ilaawaya mar weliba oo maskaxdiisa ka tirmi mayso halka maxaan ula jeedaa si loo helo faac jiil cusub oo soo koraya kuwaas oo caafimaad qaba dhanka maskaxda iyo dhan waliba kuwaas oo leh himilo aad u sareysa waa in wax la baro dumarka kadibna la helo dumar aqoon leh markii inta la helo kadib waxay soo saaraysaa jiil faac ama dad caafimaad qaba haddana yar dib u eegno taariikhdii Soomaalidii hore inta badan hooyooyinkeenii hore waxay caruurtooda kula dadaali jireen biyaha caanaha iyo hurdada iyo wixii la mid ah markaas ayay intay siiso wuxuu rabo heesahana u qaadi jirtay sheekooyinna u raacin jirtay kadibna ay si fiican habeenkii u seexin jirtay waana inta ay aqoon u lahayd balse maysan moognayn ama maysan garanayn inuu ilmaheedu waxbarasho u baahan yahay oo uu asaagii biri ka maalin la rabo inuu la tartamo si aynu u helno qiimaha dadku leeyahay waa in aynu marka hore helnaa warshad qiimo badan taasi oo soo saarta dad kalsooni leh aqli leh maskax leh biri ka maalin ku soo kordhin kara bulshadeena fikir fiican هولالكن عبدولي عبدي وإذن الله سعودين مقال كان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.